halkani waa BBC London oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka oo qodobada aan caawa ku soo qaadan doona ay ka mid yihiin baarlamanka Soomaaliya oo guddi u saari doona go'aankii ay dawladda Soomaaliya Itoobiya ugu wareejisay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. konton iyo 6 qof hadashay xildhibaana aaraadana waa wada maqasheen waxayna u badatay in la magacaabo guddi ka soo baaraan daga arrinta tan oo markaana golaha ku soo celiya. waa baarlamanka Soomaaliya oo guddigaasi saaray. asxaabta siyaasadeed ee Somaliland ayaa waxa ay soo bandhigeen barnaamijyada siyaasadeed ee doorashada ay ku galayaan. mudaharaadyo ka dhacay magaalooyin badan oo ku yaala dalka Faransiiska oo looga soo horjeedo dib u habeynta lagu sameeyay qawaaniinta shaqada iyo shaqaalaha. jaamacadda Makerere ee waddanka Uganda ayaa baaritaan waxay ku samaynaysaa dhibcaha ay ardadu heleen 5 sano ee la soo dhaafay. Corruption has eaten us to the core. We don't have any value at all whatsoever, right away from the lecturers to the students, so meaning that our students are not learning a lot. haweenay madax ka noqonaysa markii ugu horeysay waddanka Singapore. wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka oo ay soo saartay Naciima Maxamuud anigoo aadan Salamiinana idiin soo jeedinaya caawa iyo caalamka. marka hore ku soo dhawaada wararka BBC-da iyo Ciise Xaaji Cabdulle. mahadsanid aadan Salamiin. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay xukuumadda Myanmar inay joojiso tallaabooyinka militari lana gabagabeeyo colaadda ka taagan gobolka Rakhine. Antonio Guterres ayaa ku tilmaamay barakicinta qowmiyadda Rohingyada isrsafeen qowmiyadeed waxaana ku tilmaamay dhibaato xasilooni la'aan gobolka ka abuurayso. boqolaal muslimiinta Rohingyada ka tirsan ayaa Bangladesh hadda u qaxay. 6 qof ayaa ku dhimatay xarun caafimaad oo ku taalla magaalada Florida kadib markii ay ku dhacday koronto la'aan taasoo horseeday in qalabka oksijiinka uu shaqayn waayo tan iyo markii duufaanta Imma ay gobolkaasi ku dhufatay maalintii Axadda. dad badan ayaa hadda deegaankaasi laga daadgureynaya. xerilaalyaha guud ee dalka Spain ayaa waxa uu isugu yeeray hogaamiyaasha dowladaha hoose ee gobolka Catalonia inay hor yimaadaan dacwad ogeyaasha si su'aalo looga weydiiyo taageeradooda ku aadan aftida muranka ka taagan yahay ee gobolkaasi ka dhici doonto bisha soo socoto. Jose Manuel Maza ayaa sheegay in booliska ay xiraan qof walba oo tallaabadaasi ka hor imaada. dowladda Sacuudi Carabiya ayaa shacabkeeda ugu baaqday in dowladda ay ku wargeliyaan waxay ugu yeertay ficilada halista ah ee baraha bulshada la soo dhigo. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa boggeeda baraha bulshada ee Twitterka ay ku leedahay ku sheegtay in la raadiyo waxay ku micnayeen fikradaha argagixisada ama kuwa qaldan oo dowladda lala wadaago si looga hortago. ugu dambayntana jaamacadda Makerere ee dalka Uganda oo ah mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn islamarkaana ugu qadiinsan qaaradda Afrika oo lagu magacaabo ama loogu naanayso Harvard of Africa ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameynayso dhibcaha ay ardadu helaan 5 sano ee la soo dhaafay kadib fadeexad ballaaran oo dhacday 5 sano ee la soo dhaafay. waxaa jira eedeyn ku saabsan in ardada iyo macallimiinta ay ku ballameen inay isu galmoodaan si buundo wanaagsan ay u helaan ardayda. waxaa iminka baaritaano ku socdaan 9 arday iyo macallimiin jaamacadeed iyo maamulayaal. dadka caanka ee ka soo baxay jaamacaddan Makerere waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Uganda, Kenya iyo Tanzania oo kale ah Milton Obote, Mwai Kibaki iyo Julius Nyerere. waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadka caanka ee jaamacadda Makerere ka soo baxay qoraaga caanka ee Kenya ee Ngugi wa Thiong'o islamarkaana qoray buugaag waaweyn. warkii dunidan waan intaasaan dib badan kugu celiyo London. mahadsanid Ciise Xaaji Cabdulle. halkaad naga dhageysanaysaan waa London. aan ku bilownay baarlamanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka kulan ku yeeshay waxaana uu kulankaasi uga dooday go'aankii ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka qaadatay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. dooda kadib ayaa guddoonku waxa uu sheegay in guddi ay u saari doonaan go'aankaasi ay xukuumaddu ka qaadatay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax. wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaa goor sii horeysay iiga warramay arrintaasi.
aadan dood aad u xiiso badan ayay mudanayaasha baarlamanku maanta yeesheen waxaana ku cadaynaysa tirada isqortay oo keliya inay qodobkan ka hadlaan ilaa 56 xildhibaan ayaa qoray ama qortay inay doodani ka hadlaan dhammaantoodna way ka hadleen oo waxa la siinayay min 3 daqiiqo inkastoo xildhibaanada qaar ay ka badsanayeen markaasoo ay dood ka imaanaysay xildhibaanada kale xildhibaanadan ilaa 56 ka gaaraya ee mikrofoonka qabsaday ee hadlay way ku kala ra'yi duwanaayeen arrintan qaarkood waxay si cad u sheegeen inay dawladdu ay ku qaldanayd kiiska Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax isla markaana ay tahay in dawladda lagula xisaabtamo go'aankaasna inuu mid sharci darro ah lagu sheego halka qolo kale aaminsaneed inay dawladda ama xukuumaddu ku saxsanayd go'aankii ay qaadatay halka qolo saddexaadna ay soo jeedinaysay in arrinta baaris dheeraada lagu sameeyo oo guddiya loo saaro doodahaas waxaa ka mid ahaa xildhibaanadii ka hadlay xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ahaa xildhibaanadii markii hore sida xoogga leh uga soo horjeeday go'aanka xukuumadda balse wuxuu sheegay in uu xal ogol yahay ilaa 3 qodob ayuu soo jeediyey oo uu sheegay in lagu xallin karo kiiska Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax muwaadinkii la dhiibay Ethiopia noo soo celiso no release no relation qof damo Soomaaliya inaan la dhiibi karin 3 oo aan inaysan argagixisa ahayn xukuumadda Soomaaliya waa in wixii hadda ka dameeya arrimahaas ay saa u la fagurtaa ma qabo in xukuumadda lagu cadaadiyo lagu rido maslaxad gaara iyo ashxaas gaara anugu kaba tirsani muxuu ahaa dad si gaara doonaya inay xukuumadda u taageerayaan laakiin xukuumaddu khaladka ay gasho in la sheego oo la saxo weeye shaqada iyadana weeye inaanu wax saxno kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi xildhibaan Daahir Cabdullaahi oo isna ka mid ahaa xildhibaanadii 56 ka gaaraya ee isqoray ee maanta ka hadlay baarlamaanka ayaa isna qaba in arintani ay ahayd arrin ay dawladdu ku saxsanayd oo ahayd in sideeda lagu qaato annagu ma xamili karno ONLF ma xamili karno urur kale oo yimaado shabaab qoorta noogu jirto dawladda 25 sano dhibaatisnaa nahay marka mudane gudoomiye waxaan codsanaynaa maxaa la yiraahdaa in xukuumaddu barnaamijkii ay keentay ama qoraalkii ay soo saartay inuu qoraal sax ah uu yahay kana turjumayo masiirka hadda wadanka xaaladda uu ku sugan yahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Daahir Cabdullaahi aadan doodaasi waqti dheer ayay qaadatay oo gelinkii dambe ayaaba la soo gaaray oo doodu ay socotay xildhibaanadii markay wada hadleen dhammaantood ayaa markii dambe gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waxa uu sheegay in inta badan xildhibaanada hadlay markuu ra'yigooda dhageystay u badnaayeen in arrintan guddi loo saaro si xalka ma dambaysa arrintan loogu helo markii dambena gudoomiyuhu wuxuu ku dhawaaqay in guddi uu magacaabi doono maalmaha foodayna ugu soo haysa kaasi waxa uu ahaa wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan waxa inoo soo socda goor dhow safaaradda Burundi ee magaalada Nairobi wadankaasi Kenya oo ka hadashay xubno la sheegay in ay dhalashadoodu ahaayeen Burundi oo ku sii jeeday al-shabaab oo ciidamada Kenya ay qabteen balse markan Somaliland iyadoo ay 2 bilood ka dhiman tahay xilligii loo qabtay inay dhacdo doorashada madaxweynenimada jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland ayaa 3 xisbi ee halkaasi ka jiray waxa ay soo bandhigeen barnaamijyadooda siyaasadeed ee ay doorashada ku galayaan dhanka kale guddiga doorashada ayaa waxa uu soo gunaanaday diiwaangelinta codbixiyaasha iyo qaybinta kaararka codbixinta waxaana lagu wadaa in liisaska rasmiga ah si dhaqso leh loo soo saari doono wariyaha BBC da magaalada Hargeysa Axmed Saciid Cige ayaa haddaba 3 xisbi ka waraystay mid walba waxyaabaha cusub ee ay xoogga saarayaan hadalka waxaa ku horeynaya afayeenka xisbiga talada haya ee Kulmiye Xasan Maxamed Cali oo ka hadlaya barnaamijka siyaasadeed ee xisbigiisa iyada oo doorashada madaxtooyada Somaliland ay soo dhowdahay oo muddo wax 2 bilood ka yari ay ka harsan tahay 13 bisha November 2017 kana la filayo in ay dhacdo ayaa qormadan waxa aanu ku eegaynaa 3 xisbi ku tartamaya doorashada madaxtooyada ee Kulmiye wadani iyo u cid barnaamij siyaasadeedkooda ay doorashada ku galayaan aan ku hormaro marka hore xisbiga talada haya ee Kulmiye waxa ka waramaya barnaamijkooda siyaasadda afayeenka xisbigaasi Xasan Maxamed Cali Xasan Gaafadi barnaamijku wuxuu ka kooban yahay 7 tiir ayuu ka kooban yahay waa amniga arrimaha bulshada dhaqaalaha garsoorka deegaanka iyo isbedelka cimilada haddii la rabo in horumar la sameeyo waxa ugu muhiimsan marka hore inaad heshid amnigii kuu hirgelinayey ama kuu saamaxayey inaad dhaqaalo ku abuurto inaad deganaansho ku abuurto inay suurto gasho in waxbarasho la sameeyo in cusbitaallo iyo caafimaad la sameeyo
ayaa ugu muhiimsan sidaasaanu amniga aanu u saarnay xoogga marka waxaad kaloo sheegteen in mushaarka ciidamada kordhinaysaan xaggee laga keenaya dhaqaale marka hore waxaa weeyaan waa in cashuuraha la ballaadhiyaa oo wixii waajibay ee aan ilaa hadda la qaadinna la gaadhsiiyaa sidii loo ururin lahaa ee loo qaadi lahaa waxa iminka la qaade ee laakiin tay ahaan ay hoosaysana in kor loo qaado iyo in wax soo saarka la dhiirigeliyo oo waxaan dabadda laga keenayo si loo yareeyo wax laale wixii suurtagal ah waddanka ka soo bixi karaya in wixii wax haysta ee ganacsada fikrad haysata maxaan ku rahday aqoon leh iyo dowladduba xukuumadduba inay wadaagaan inay hirgeliyaan mashaariic lagu daydo oo tijaabooyin ka baxa oo dabadeedna lagu kordhinayo wax soo saarka kaasi wuxuu ahaa xasan gaafaadhi afayeenka xisbiga talada haya ee kulmiye ee Soomaaliland bal dhinaca kalena xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamed Cabdilaahi Uurcade ayaa isagana aan ka wareystay barnaamij siyaasadeedka ay doorashada ku galayaan xisbigaasi horta barnaamij siyaasadeedka xisbiga ku galayno waa barnaamij aad iyo aad u ballaaran xagga dhaqaalaha haddaan ka hadlo ama ka hadlo xagga hantida ummadda waxa weeye xisbiga wadani waxaa la wixii hanti ummadi ay lahayd si sharci darro ah u baxay waanu soo celinayna ummadda sideediina waynugu soo celinayn ciidamada waad ogtiino waxaanu u kordhinaynaa boqolkiiba 250 baanu u kordhinaynaa guryo waanu dhisaynaa shaqaalaha dowladda ayagana waana soo saarnaa intaanu u kordhinayno waananu iclaamaynaa waana qoran tahay runtii waxaanu jecel lahay in caafimaadkaanu saarno xoog aad iyo aad u ballaaran iyo waxbarashada dhaqaalahana runtii waxaan jecel lahay sicir bararka maanta dalkii baabiiyey aad iyo aad ummaddii maanta waxay cunto ma hayso xogaye guud Maxamed Cabdilaahi Uurcade waxaad sheegtay in hantida ummadda sida sharci darrada ku baxday la soo celin doono bal taa noo faahfaahay waxaana jirta had iyo jeer in la sheego oo saddexda xisbiba sheegaan musuqmaasuqa in la dagaalami doonaan qabyaalada la dagaalami doonaan horta musuqmaasuqa hantida ummadda uma ahee musuqmaasuqu ilaa dhaqaalihii waa baaba maanta waa cid alla cid wax xisaabsan iyo xisaabtan dalkan ka jira ma jiro nin waliba halku joogay wuxuu ka dhigtay meeluu leeyahay taa iyada waxaanu samayn doonaa audit madax bannaan oo adag oo qof waliba waxaanu xaq u lahayn aanu qaadan karin tan kale tan la xisaabtanka waad ogtihiin hantidii ummadda hadday guryo tahay hadday deke tahay hadday madaar tahay meel walba sidii la doonaa loogu takrifaray qofkii joogay baa siduu doono u galay waxaa dib baanu u eegayna waxaanaanu eegi doonaa wixii sharci ku baxay ummaddani ay dhigatay wixii khayr sharci ku baxayna waa la soo celinaya kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdilaahi Uurcade xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani oo isagu faahfaahinayay qodobada cusub ee barnaamij siyaasadeedka ay doorashada ay ku galayaan imikana bal xisbiga mucaaridka ee ucid injineer Axmed Xirsi Ducaale waa gudoomiyaha ololaha heer qaran ee xisbigaasi waxa aan weydiiyay barnaamij siyaasadeedka xisbiga mucaaridka ee ucid anaga barnaamij siyaasadeedka iyaga qaybta maamul wanaaga dhisid dawlad kooban oo tayale ayaanu ka bilaabaynaa oo aan ka badnay 16 wasiir oo lagu soo xulo aqoon sareysa iyo qofka experience-ka iyo khibradda uu u leeyahay shaqada aan ku soo xulanaynaa qofku inuu nadiif ka yahay musuqmaasuqa iyo wixii la halmeela iyo inuu yahay qof waaya araga waxaanu samaynaynaa xisbiga ucid waxaanu hirgelinaynaa dhaqaale ku dhisan ama ku salaysan suuqa xorta ah waxaanu samaynaynaa inaanu kor u qaadno wax soo saarka asaasiga waxaanu kobcinaynaa kalluumaysiga khayraadka badda waxaanu kobcinaynaa beeraha waxaanu dhammaan dalka gaarsiin doonaa biyo nadiif inuu dadku helo wax soo saarka xoolaha nool macdanta wadanka inaanu soo saaro xoojin sicir bararka ka war weydi ku jirtay sicir bararka aad ku ololeyseen inaad ka qabanaysan wax sicir bararka waxaanu ka qaban doonaa waxaanu sugaynaa banka dhexe inuu noqdo ka monitor gareeya ama maamula lacagta wadanka sicir bararka waxaanu samayn doonaa inaanu banka dhexe u goyno qiimo go'an ammaanka ayaad idina sheegteen iyo xagga ciidamada iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan tareerin baan noogu jira waxaanu qalabayn doonaa inaanu ka dhigno ciidan qalabaysan oo qalabka casriga ah ciidan u dhigma ciidamada dawladaha jaarka ama ka heer sareeya inaanu dhisano kaasina wuxuu ahaa Axmed Xirsi Ducaale oo ah u hadlayay barnaamijka xisbiga mucaaridka ee ucid wariyaha BBC-da magaalada Hargeysa Axmed Siciid Cige ayaa warbixintaasi Hargeysa nooga soo diray halkaad naga dhageysanaysaan waa London
safaaradda burundi ee magaalada nairobi ayaa waxa ay sheegtay inaanay helin xiriir rasmi ah oo ku saabsan 4 muwaadin oo ay xireen kenya wakhti lagu eedeeyey in ay ku sii socdeen inay ku biiraan maleeshiyada al-shabaab. booliska kenya ayaa shalay qabtay 3 qof oo la aaminsan yahay in ay yihiin burundi, waxaana lagu qabtay bar kontarool oo ku taalla magaalada Isiolo oo 350 kilomitir waqooyiga kaga beegan magaalada Nairobi, waxaana ay ku sii jeedeen magaalada Mandheera ee dhacda xuduudda Soomaaliya. waxaana la aaminsan yahay in ujeedkoodu uu ahaa in ay ku biiraan ururka al-shabaab. safiirka burundi ee kenya Mr. Remi Barambama ayaa BBC-da waxa uu sheegay in baaritaanka socda ay ka warsugayaan. At this moment, I can tell more about those nationals. ilaa iyo hadda wax badan kama dhihi karo jinsiyadda muwaadiniintaasi oo ay xireen ciidamada booliiska ee Kenya markii ay ku socdeen Soomaaliya. xaqiiqdii anigu ma hubo inay u dhasheen waddanka Burundi, inkastoo magacyadoodu u eg yihiin kuwa reer Burundi. ma jiraan wax ku tilmaamaya in arrintaasi run tahay ee aan ka warsugno fursadda aynu kula kulmi karno shakhsiyaadkaas si aan ula hadalno waxna uga dhihi karno inay reer Burundi yihiin iyo in kale. hadda arrintaasi aynu ka warsugno. At this moment, we are still waiting. mudaharaadyo ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin badan oo ku yaala waddanka Faransiiska oo looga soo horjeedo dib u habeynta lagu sameynayo qaanuunka shaqada iyo dhaqaalaha ee waddanka Faransiiska. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa ay sheegtay in dadkaasi banaanbaxayay ay ahaayeen dad ka badan 200 oo kun. hase yeeshee ururada shaqaalaha ayaa waxa ay sheegeen in tiradu intaasi ay ka badan tahay. warbixintan waxa ay noo soo jeedinaysaa wariyaha BBC-da Faadumo Macalin. waxay tani u tahay madaxweyne Emmanuel Macron tijaabadii ugu horeysay uguna weyneyd, balse ma uusan soo faragelin isagoo ku mashquulsanaa saameynta duufaanta Irma ee gobolka Caribbean-ka. wuxuu booqanayay St. Martin iyo St. Barts oo ka mid ah jasiiradaha ay sida ba'an u saameysay duufaanta toddobaadkii hore. dibadbaxyadii ugu horeeyey ayaa ka dhacay magaalooyin ku kala yaala koonfurta, galbeedka iyo waqooyiga dalkaasi, iyadoo ay ka qayb galeen kumanaan dibadbaxayaal ah. isku dhacyo ayaa la sheegay in dibadbaxayaal iyo booliiska ay ku dhex mareen magaalada Lyon kadib markii ay booliisku wadooyinka xireen. booliiska iyo qabanqaabiyayaasha dibadbaxyada ayaa ku kala aragti duwan tirada dadka ka qayb qaatay, iyadoo midowga bidix ee CGT ay ku sheegeen tirada dibadbaxyada guud ahaan dalkaasi Faransiiska inay gaarayaan 400,000. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in guud ahaan dadka la xiray ay gaarayaan 13 qof. madaxweyne Macron ayaa talada dalkaasi qabtay isagoo watay hiigsi ah inuu wax ka bedelo dhaqaalaha dalkaasi una sanadka 2022 boqolkiiba 7 yareeyo heerka shaqo la'aanta oo haatan maraysa 9.5 boqolkiiba. kooxda Macron ayaa qorshahaasi ku dhawaaqay bishii hore kadib markii ay la tashi la sameeyeen midowyada iyo weliba dadka wax shaqaaleeya. toddobaadkii hore madaxweynaha ayaa ka caraysiyay mucaaradka kadib markii isagoo ku sugan dalka Giriiga uu sheegay inay ka go'an tahay oo uusan u jabi doonin kuwa ka soo horjeeda. Faadumo Macalin aad bay ugu mahadsan tahay warbixintaasi ay inoo soo jeedinaysay. madaxweynaha Singapore ayaa waxa loo magacaabay markii ugu horeysay qof dumar ah inay madax ka noqoto waddankaasi. Halima Yacob oo ah qof ay bulshadu si weyn u taqaano. Miss Halima ayaa si weyn loo filayay in ay ku guuleysto doorashada madaxtinimada ee waddankaasi Singapore, laakiin xilligeeda ayaa waxa uu ku bilaabanayaa iyadoo ay jiraan isqabqabsi aad u badan. wariyaha BBC-da Xasan Geele ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya. Halima Yacob ayaa xilkaasi la iska siiyey waayo ma uusan jirin musharax kale oo u qalma xilkaasi. dadka reer Singapore ayaa inta badan u soo joogay doorashooyin natiijadooda horey loo sii saadaaliyey, iyadoo hal xisbi oo keliya uu 52 sano ee lasoo dhaafay uu ku guulaysanayay doorashada kuraasta baarlamaanka dalkaasi. arrinta ayaa inta badan loo aanaynayaa dadka u hoggaansan xisbiga PAP, balse sidoo kale dowladda ayaa aad u xadida warbaahinta iyo xorriyadda siyaasadeed ee dadka. caadiyan madaxweynaha dalkaasi ayaan lahayn wax awood ah marka laga reebo inuu ra'yi ku darsado arrimaha dhaqaalaha dalka. dad badan ayaa hadda doonayay inay codkooda dhiibtaan, waxayse Isniintii ka caroodeen markii la sheegay in Halima ay tahay musharaxa keliya ee ku tartamaysa xilkaasi.
kal hore waxaa jirtay 2 musharax oo ay suurtagal ahayd inay u tartamaan xilkaasi balse guddi ay dowladda soo magacowday ayaa go'aansaday in aysan u qalmin in xilkaasi ay u tartamaan maadaama shirkadahooda ganacsiga aysan min 500 milyan oo dollar haysan marka laga jaro deymaha lagu leeyahay sharciga oo ay dowladda dhowaan xoojisay xaliima yaaquub iyadu xitaa uma aysan qalmin inay u tartamto xilkaasi waa haddii la eego sharcigaasi balse waxay horey u soo ahaan jirtay afhayeenka baarlamaanka Singapore waxaana u sahlan dadka xilalkaas ka soo qabtay dowladda inay xilkaasi u tartamaan waxaana haatan soo baxayo warar la isla dhaxmarayo baraha xiriirka bulshada oo ay dadku ku shaactiraysanayaan kuwaas oo sheegaya in madaxweynaha la soo xushay ee aan la soo dooran xaliima oo ah haweeney muslim ah ayaa ah madaxweynaha labaad ee ka soo jeeda qowmiyadda laga tira badan yahay ee Maalayga waana tallaabo ay tahay in aad loogu farxo marka la eego siyaasadda dalka Singapore balse taa beddelkeeda muran ayaaba ka taagan arrintani sababtoo ah doorashada ayaa u furnayd oo keliya musharaxiinta ka soo jeeda qowmiyaddani waa markii ugu horraysay oo dowladda ay qowmiyad gooniha u oggolaato inay u tartanto xilka madaxtinimada dalka waxaana dowladdu ay haatan ku doodaysaa in lagama maarmaan ay tahay in qowmiyadaha kale ee laga tirada badan yahay la siiyo fursad ay ku hoggaamin karaan dalkan oo ay ku badan yihiin dadka asalkooda yahay Shiinaha balse dadka Maalayda ah ayaa u arka arrintani quursi dadban oo lid ku ah sharciga soo jireenka ee waddankeena oo dhigaya in xilka loo oggolaado qof kasta oo u qalma iyada oo aan la eegin halka uu ka soo jeeda xasan cali geele aad buu mahadsan yahay waxaa goordhow inoo soo socda shirkadda Apple oo soo saaraysa iPhone cusub oo ay ugu magac dartay iPhone X bal waxaanu ku eegi doonaa waxyaabaha uu kaga duwan yahay teknoloji ahaan midka haatan jira balse haatan jamhuuriyadda Afrikada Dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Faustin Todera ayaa shaqadii waxa uu ka eriyay wasiirkiisii gaashaandhigga laakiin ma aanu sheegin haddii ay eriyadani ay xiriir la leedahay rabshadihii dalka ka dhacay warbixin qaramada midoobay ay soo saartay ayaa waxa lagu sheegay in 25 qof la dilay bishan gudaheeda kumanaan kalena ay barakaceen kooxo ciidamada ah ayaa waxa ay ku dagaalamayaan sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen gacan ku haynta kheyraadka dalka wariyaha dhinaca nabadgelyada ee Afrika Tommy Oladipo ayaa warbixintan diyaariyay waa kan Faarax Lamaane oo soo jeediya Joseph Yaketa ayaa waxa uu ahaa wasiirka difaaca muddo in yar ka badan sanad laakiin intii uu hayay xilka xaaladda amniga ee jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ma aanay soo reynin xaqiiqdii waxaaba guuldaraystay heshiis nabadeed oo bishii Juun ay wada saxiixdeen xukuumadda iyo kooxo maleeshiyooyin ah kaasoo dagaalka lagu soo afjari lahaa hay-adaha gargaarka ayaa waxa ay ka digeen in rasaasta la isdhaafsanayo ay qabsanayso dadka rayidka ah iyada oo dumarka iyo carruurtana ay yihiin kuwa aadka ugu nugul hay-adda MSF ayaa waxa ay sheegaysaa in qiyaastii 20,000 oo qof ay ka carareen koonfurta bari ee waddanka oo ay u carareen dhulka kaynta ah ama ay ka gudbeen xuduudda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo bishii la soo dhaafay ayaa mutadawiciin ka tirsan Lanqeyrta Cas waxaa lagu dilay isla gobolkaas madaxweyne Faustin Todera ayaa waxa uu bilaabay barnaamij hubka dhigis ah oo ku aadan xubnaha 14 kooxood mashruuca ayaa si gaabis ah u socda waddanku waxa uu ku tiirsan yahay 12,000 oo ah nabad ilaaliyayaal ka socda qaramada midoobay oo amniga sugaya iyadoo uu isku dayayo in ciidankiisa uu dhisto kaasoo burburay 2013 intii uu socday dagaalka ahliga ah Faarax Lamaane aad buu u mahadsan yahay shirkadda Apple ayaa waxa ay sheegtay inay soo saarayso iPhone cusub oo lagu magacaabo iPhone X kaas oo la macno ah iPhone 10 waxyaabo badan oo cusub ayuu leeyahay oo uu kaga duwan yahay iPhone-nadii hore haddaba waxaan arrintaasi goordhow aan ka waraystay Cismaan Cabdi Xasan oo ka tirsan BBC-da oo aan marka hore weydiiyey bal inuu inoo fasiro iPhone-kan cusub saaliminow telefoonkan aad ayaa loo sugayey waa ka duwan yahay iPhone-nadii hore wax badan oo casri ayuu leeyahay waxaa ka mid ah sida marka dabka la siinayo kale wireless waa xarig uma baahna si toos ayuu u qaadanayaa waa ka xawaara badan yahay telefoonadii hore marka waxyaabo badan uu leeyahay wejigaagu ayuu aqoonsanaya aad ku furan kartaa baaswirka markaad ku furayso intaas oo sheey iyo waxyaabo kale oo hadda aad u badan oo haddii lasii aqriyo ama qofka isticmaalo uu ka arki kara ayuu leeyahay marka telefoonada iPhone-ka hore u jiray noocan hadda la yiraahdo telefoonka iPhone X ama iPhone 10 waa ugu casrisan yahay marka maxaa yani lagu dhaliilaa ilaa kulley shay kasta oo cusub waxa uu leeyahay dhinac wanaagsan iyo dhinac laga yaabo inay dhaliil ka timaadeen
saalimino waxyaabaha hore uu lahaa oo iPhone-nada kale uu la wadaago waa waxyaabihii caadiga ahaa waxa lagu kordhiyey ee hadda la dhaliilayo waxa ugu weyn aqoonsiga wejiga oo ay dadka qaar leeyihiin waxa khatar ah in qofka haddii wejigiisii iyo wax dhan ay halkaas ku jiraan in hadduu la kulmo arrin dhibaato ama la jajuubo kale in si xoog looga qaadan karo wejigiisa la saari karo la furi karo dadka qaar waxay leeyihiin hadda kahor waxaa dhacday in qalab sidan oo kale ama kombiyuutarre oo wejiga aqoonsanaya in sawirka qofka inta la daabacay lagu furtay marka su-aale isweydiinaya waxay leeyihin haddiiba waxaagii iyo xogtaadii wejiga la geliya halkaasi sida ay ammaan ku qabayso ama midda kalena jirtana waxay tahay haddii mar lagaa xado wejigaas waa sidii loo xaday oo ma bedeli kartid baaswarka waa bedeli kartaa laakiin kan ma bedeli kartid midda kaleo cadna waxay ahayd shalayto markii lasoo bandhigayey ninka madaxda ka ah markii ugu horreysay isku dayay isaga xitaa way u furin weysay marka mustaqbalka dadka taasi su'aal iska weydiinayaan inkastoo waxyaabaha kale uu leeyahay ay aad u wanaagsan yihiin qiimaha marka ee iPhone-kan cusub ee la sugayo in suuqa uu soo galo maxaa qiyaasta lagu qiyaasa waa $1,000 aad ayuu qaali u yahay oo way ku adag tahay dad badan inkasta marka loo fiiri kuwa hadda yaallo $800 iyo $700 ay yihiin uu dhowr boqol un ku kordhay haddana ma sahlana kan lacagta xaggeeda waa laga qayliyey marka teknolojiyadan marka iPhone-kan waxaad u malaysaa in wax badan lagu kordhiyay maxay sidaa u yeelayaan baa la leeyahay iyagu waxay leeyihiin waxaan u samaynaa iPhone-ka waxyaabo ku qasbaya dadka inay lacag badan bixiyaan marka waxyaabahaasi ayay leeyihiin dadka waa inay lacag u quuraan annaga wax cusub oo aan la heli karin ama la samayn karin oo aad u adag ayaan gelinay iyo dadaal badan cismaan cabdixasan aad buu u mahadsan yahay dhinaca kalena dhegaystayaal badan ayaa ra'yigooda ka soo dhiibtay iPhone-kaasi cusub waana kuwan qaar ka mida dhegaystayaasha Facebooka oo ra'yigooda dhiibanaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu BBC waana salaamay dhammaantiin daadiyaasha barnaamijka dhammaan aad baan salaamay magacaygu waa Nafsudiid waxaan joogaa dadka wadanka Australia mobilkaasi waa mobil qaali waaye mobilkaasi mobil wanaagsan waaye bonus marka lacagta uu qalmaa wallahi boqolkiiba uu qalmaa mobilka wejiga bil programkiisa faraha badan uu wato wallahi waa wax adduunka ku soo kordhay waana aalad casri oo fiican aad ugu faraxsanahay waana rajeynayaa insha Allah dadka ugu horqaateen aan noqdo tahay waxa iibsan doona inkastoo uu qaali ku soo baxay telefoonkan dadka dunidan ku nool dadka ugu haragada jecel BBC Soomaali waan salaamay magacaygu waa Dayib Digaa Ciidid haddii aan fikirkayga ka dhibto telefoonka casriga ah ay soo saartay shirkadda Apple ee iPhone X run ahaantii waa mid cajiib ah balse qiimihiisa aad u qaali ah oo darteed run ahaantii anigu aragtayda ma siisteen mobil qiimaynta leeg waayo waxaan helayaa mid $100 ama $200 oo intuu isagu ii qabanaya macluumaadkiisa kala dheeraadka iyo indhaha uu isku furayaan hadda kale anigu waxaan u arkaa wax iska aan wax sii ridan ahayn sababtoo ah waa ka dhici karaa waxaan oran lahaa Soomaalidu kullay in badan oo kamid way iibsan doontaa mobilka laakiin waxaan leeyahay kuwa helaya lacagtiina yaan leeydi weydiinaad mobil siisana sanita leege masaakiinta walaalihiina ee baahan ku caawiya ayaan lahaa wassalaamu calaykum qaar ka mid ah dhegaystayaasha Facebooka oo aragtidooda ka dhiibanayay iPhone-ka cusub ee shirkadda Apple ay sheegtay inay soo saarayso mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee dalkaasi Uganda ee jaamacadda caanka ee Makerere ee ku taala caasimadda waddankaasi Uganda ee Kampala ayaa waxay sheegtay inay baaritaan ku samayn doonto dhibcaha ama buundada ay ardadu helaan 5 sano ee la soo dhaafo kadib fadeexa ballaaran oo dhacday 5taasi sano ee la soo dhaafay waxaa jiray eedeymo ku saabsan in ardada lagula ballamay in dhibco wanaagsan la siinayo taas oo ay ku bedelanayaan in macallimiintu ay u galmoodaan Axmed Beder ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya ciidanka ku saabsan qishka iyo khiyaanada ay sameeyaan caruurta u qaata telefoonada casriga ee jaamacadaha xilliga imtixaanada isla markaana macallimiintooda u dira lacago laaluusha si ay muddo wanaagsan u keenaan ayaa ah mid baahsan waxaa sidoo kale jirta eedayn ku saabsan in caruurta jaamacadaha ka taga iyagoo aan dhammaysan waxbarashada iyo kuwa aan weligood iskuul dhigan ay suuqyada ka iibsadaan shahaadooyin jaamacadeed oo been abuura waxaa imika socda baaritaana lagu samaynayo 9 arday macallimiin jaamacadeed iyo maamulayaal jaamacadda Makerere waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn isla markaana ugu qadiinsan qaaradda Afrika waxaana lagu naanaysaa The Harvard of Africa dadka caanka ee ka soo baxay jaamacadda waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Uganda, Kenya iyo Tanzania oo kala ah Milton Obote,
Moi Kibaki iyo Julius Nyerere. Waxaa sidoo kale ka mid ah dadka caanka ee jaamacadda Makerere ka soo baxay qoraaga caanka ah reer Kenya Ngugi wa Thiong'o isla markaana qoray buugaag badan. axmed badar aad buu ugu mahadsan yahay warbixintaasi uu inoo soo jeedinaysay. qodobkaasi ayaana guud ahaan ugu dambeeyey barnaamijkeennii caawiya caalamka oo ay soo saartay Nacima Maxamuud, anigoo aadan Saalaamiinana idiin soo jeedinaya warkana uu Ciise Xaaji Cabdulle stuudiyaha magaalada Nairobi uu nagu akhrinaya. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.